Bismillaahi Raxmaani Raxiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaro warka habeenimo idaacadda warbaahinta maantana waxaa ka mid ah Puntland oo caawa xaqiijisay kiiskii ugu horreeyay oo ah cudurka coronavirus oo laga helay deegaanadeeda iyo dad hor leh oo loo karantiilay cudurkan dagaal beeleed khasaare geysta oo maanta ka dhacay gobolka Sanaag iyo madaxweynaha Soomaaliland oo ku baaqay in la joojiyo dagaalkaas dawladda Soomaaliya oo hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka COVID-19 lana tacaalayso dadka cudurkan soo rito maamulada Galmudug iyo Puntland oo sheegeen caawa wixii ka dambeeyay gaalkacyo ay geli doonto bandow habeenkii ah maamulka Galmudug iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo heshiis hordhaca kala dhex dhigay beela ku dagaalamay xadka Galgaduud iyo Itoobiya iyo maxaabiis badan oo ku dhintay xabsi ku yaala waddanka Chad waa habeen axad isniin ay soo gelayso taariikhdu ay tahay 19 bisha 4 Abriil sanadka 2020 intaad maqasheen waxa caawa inoo faahfaahinaya wariyaheenna Cabdisataar Xaaji Cali mahadsanid Yoonis Duraan Cali habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii habeenimo idaacadda kulmiya oo fidsanna Puntland ayaa caawa xaqiijisay in kiiskii ugu horreeyay oo ah cudurka coronavirus laga helay deegaanadeeda iyadoona faahfaahinna ay ka soo baxayaan dad hor leh oo loo karantiilay cudurkan soo saaraheenna warka habeen Yoonis Duraan Cali ayaa faahfaahinta inoo haya guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee maamulka Puntland ayaa caawa xaqiijiyay kiiskii ugu horreeyay oo ah cudurka coronavirus in laga helay deegaanada maamulka Puntland guddiga ayaa sheegay in qofkan laga helay xanuunkan uu ka mid ahaa 2 qof oo dhawaan looga shakiyo cudurkan baaritaano lagu sameeyayna lagu ogaaday inuu qabo xanuunkan sidoo kale guddiga ayaa sheegay in dad gaarayay ilaa 5 ruux oo xanuunkan looga shakiyay iyagana la geliyay karantiil wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland Dr. Jaamac Faarax Ahmed ayaa sidan warbaahinta u sheegay kadib shir jira iyadoo caawa ku qabtay magaalada Garowe waxayna u dhigan tahay sida tan qodobka koowaad guddigu wuxuu xaqiijinayaa in kiiskii ugu horreeyay oo COVID-19 ah laga helay gudaha Puntland muwaadinkan ayaa ka mid ah labadii qof ee baaritaanka dhowaan laga qaaday qofka kale jawaabtiisii waxa ay soo noqotay negative oo wax xanuuna laga waayay qofka laga helay COVID-19 oo hadda xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay ayaan in dhoweyn wax safar ah samayn taasi oo muujinaysa in cudurka COVID-19 uu ku jiro community-ga dhexdiisa laakiin laga yaabo dadka intiisa badan maadaama marmarka qaarkood calaamaduhu ay iska yihiin calaamado fudfudud aanay si fiican u fahansanayn oo aanay iska soo xaadirin goobaha caafimaadka guddigu wuxuu bulshada la wadaagayaa in 5 qof oo cusub la karantiinay maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bishii Afraad 2020 dadkaasi oo baaritaan laga qaadi doono ayaa hadda ku jira karantiin xanuunkan oo caalamka farabaan ku haya ayaa haatan wuxuu si weyn ugu faafayaa gudaha Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa xariishay in dadka laga helay xanuunkan ee ku sugan Soomaaliya ay gaarayaan ilaa 135 ruux halka dhimashadana ay marayso 7 ruux dagaal beeleed khasaare geystay ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag iyadoona madaxweynaha Soomaaliland uu ku baaqay in la joojiyo dagaalkaas Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan magaalada Hargeysa ka soo diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanka Fadhigaab ee ka tirsan gobolka Sanaag inay dejiyaan isla markaana qaataan nabadda isagoo ugu baaqay in waqtigan loo baahnayn in dadka deegaanadaasi ay isku laayaan beelo madaxweynaha Soomaaliland ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dagaaladu ay ka soo noqnoqdaan gobolka Sanaag isla markaana labadii beelood ee hore loo heshiisiyay sanadkii 2019 ay isla imika halkaasi ku dagaalamaan muddo dheer oo sanado badan ah ayaa arinteeda lagu jiray in la xalliyo si dawladeed iyo si diimeed iyo si dadnimo intaba waa loo galo waa lagu xalliyey muddo dheer iyo waqti badan iyo daal badan ayay Soomaaliland oo dhan u gashay in arintaa xal waara laga gaaro waana la isla afgartay nasiib darro taasaa ka dhacdayna laba firay waa u ducaynana
ee ceelafweyn iyo jiida dadka degan in ilaahay qulubtooda soo jeediyo oo iyagunbay nabaddu ka go'daaye ilaahay waafajiyo guud ahaan waa ugu ducaynayna waxaan leeyahay dagaalkaa la joojiyo bishii rabadaanna waa inagu soo dhowday ilaahayna barwaaqo badan iyo roob iyo nimcuina siiyey nabadna waa ina siiyey maanta col kale oo cudurina waayna hayaa inu ka baqayno adduunka o dhan haya maanta waa maalintii la wada jiri lahaa ee la iskaashan lahaa maaha maalintii xabadda iskula balaabi lahaa dagaalka u dhexeeya labada beelood ee ka dhacay Sanaag ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo khasaare iyadoo la sheegayo in dadka dhaawacyada ah la keenay magaalada Hargeysa Burco iyo sidoo kale Ceeri Gaabo xaaladoodana lagu daweynayo cisbitaalada ku yaala magaalooyinkan ilaa iyo hadda laga ma oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaaladaasi beelaha dhexmaraya iyadoo ciidamada militariga Soomaaliland ee ku sugan gobolka Sanaagna ay beelahaasi ciidamada maleeshiya beeleedka kala taabacsan ay kala dhex galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale ka hadlay baaqay culimada Soomaaliland jeediyeenkaasi oo ahaa in aan la xidhin masaajidada isagoo ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mid loogu waaninayay shacabka si aanay isugu iman goobaha cibaadada iyo sidoo kale goobaha lagu qayilo madaxweynuhu waxa uu sheegay in bulshada ay ilaa iyo hadda ka qabto badqab wanaagsan cudurka coronavirus isla markaana 6 kiis lagu arkay oo loo baahan yahay inay dabku digtoonaadaan si aanu cudurkaasi ugu sii faafin deegaanada Soomaaliland Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa wariyahana Ilyas Cabdi Cali aad buu u mahadsan yahay dawladda Soomaaliya ayaa hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka COVID-19 oo lagula tacaalayo dadka cudurkan uu soo rito kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay kordheen kiisaska la xiriira xanuunka COVID-19 ayaa dawladda Soomaaliya waxay hirgelisay xarunta dhexe ee xiriirka laga hagayo talooyinka la siinayo dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 iyo kuwa isaga shakisan ee u baahan inay isbaaraan xaruntan oo si casri ah loo diyaariyay ayaa waxay ka jawaabaysaa dhammaan wicitaanada taleefanka gaaban ee u gaarka ah COVID-19 ee 449 waxayna bukaanada ku xirtaa qaybaha kala duwan ee la tacaala cudurkan sidoo kale xaruntan ayaa bukaanada xaaladoodu ay tahay mid fudud waxa ay siisaa talooyin caafimaad halka kuwa ay adag tahay xaaladoodu loo diro gaadiidka gurmadka degdega ah si loo geeyo xarunta isbitaalka Martiini ka xaruntan soo wacaya 24 saac kasta oo gaaraya 4000 oo qof oo kala jooga gobolada dalka ayaa kala ah bukaano ka sheeganaya calaamadaha cudurkan qaar ka mid ah shaqaalaha xaruntan ka howlgala ayaa ka warbixiyay sida ay xaruntan u shaqayso bukaanka waa wacna waa la xiriirnaa xaaladiisa ayaa hubinaa bukaanka u baahdo in loo sameeyo gargaar caafimaad waxaan u dirnaa ambulance iyo howlwadeeno caafimaad ee yaqaano bukaanada si loo handaleeyo isbishal bukaanadan oo kale dankadii way soo wadaan waxay keenaan santarka weyn ee dawladdu asaasay ee Martiini Hospital dankadibna waxaa loo sameeyaa gargaar caafimaad runtii xaruntan waa xarun aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed waxaana soo wacay bukaano aad u badan qaar uu ku dhacay cudurkii qaar iska shakisan intii cudurka iska shakisaneed oo soo wacday waxaa siinaa wacyigelin oo ku aadan cudurka si looga hortagi lahaa intii cudurku ku dhacayna ama wixii emergency ah markaas oo lagu arka xaalad degdeg ah waxaa la xiriirinaa qaybta oo isbitaalada halkaan waxaa jooga dhakhtar oo la xiriiriyo cuduradaas hirgelinta xaruntan ayaa meesha ka saaraysa jahwareerkii walwalka ay la kulmeen dadka isku arka astaamaha lagu garto COVID-19 waxayna kaali weyn ka qaadanaysaa ururinta xogta dadka uu cudurkan ku dhacay iyo kuwa ay xiriirka la yeesheen maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa sheegay in caawa wixii ka dambeeya magaalada Gaalkacyo ay gali doonto bandow xilliyada habeenkii ah Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo xilli uu sii badanaya kiisaska la xiriira cudurka coronavirus isla markaana walwal xooganaya muujinayaan shacabka Soomaaliyeed ayaa haddana maamulada Galmudug iyo Puntland waxay bilaabeen dadaalo xoogan oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaasi shir jaraa'id oo ay si wada jira Gaalkacyo ugu qabteen gudoomiyaasha gobolka Mudug ee Galmudug ee Puntland Cabdiraxmaan Isaxal iyo Axmed Muuse Nuuryare ayaa waxay ku soo saareen amar ku saabsan in caawa wixii ka dambeeyay magaaladu ay tahay bandow lana joojiyay isku imaatinka bulshada iyo isku socodka gaadiidka ka yimaada magaalada Muqdisho iyo magaalada Gaalkacyo si loo xakameeyo faafitaanka cudurkaasi labada gudoomiye ayaa ka codsaday shacabka reer Gaalkacyo inay u hoggaansamaan awaamiirta maamulka iyo talooyinka caafimaad ay bixinayaan shaqaalaha caafimaadka arinta aan isugu nimid waxay tahay inaanu qabanno
kulan wareed ku saabsan ka hortagga iyo u diyaargarowga xarunka corona annaga oo tixgelinayna amarada ka soo baxay madaxweynayaasha oo Saciid Cabdullaahi Daniina oo bil ka hor 15 casho ka hor ku dhawaaqay waxa lagu dhawaaqay 29 bishii hore madaxweynaha galmudugna uu dhawaan ku dhawaaqay waxaanu isla qaadanay oo halkaan rabnaa shacabka si wada jira inaan ugu sheegno in aan u diyaar garownayno ka hortagga xanuunka COVID-19 lalahaa ilaahay naga badbaadshay oo shacabka isku si aan ugu adeegno bandowgu waa bandow qaadku waa joojin safarku waa joojin kulamadu waa joojin aroosyadu waa joojin shirarku waa joojin xilliga bandowga meel furan ma leh oo ahi waxaanu isla gaarnay si wada jira inaanu kulankan ugu baaqno dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Mudug iyo wixii u soo safri lahaaba in safarkeena mamnuuc yahay in cidina u soo safri karin